قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، weli waxaan ku dhex jirnaa suuradii kahf. wiilashii asxaabulkahfka sidoodiina waa noo soo dhammaatay. nebi moxamedna waxaa la faray nafsadiisa inuu ku dhex xabiso, ee uu ku dhex sabarsiiyo, ee uu ku dhex nagaado dadka cibaadada jecel ee habeen iyo maalin rabbigood caabuda, ayagoo weliba doonaya wejiga alle subxaana wa tacaala, inuusan indhihiisa ka leexinin xaggooda doonid uu doonayo ziinada iyo dhalaalka adduunka darteed. haadeecin buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala, mid aan qalbigiisa ka qufulnay oon ka daboolnay dikrigeennii hawadiisa raaco amarkiisii furaq iyo hordhac noqday ama xadgudub. xaqaani xagga rabbi buu ka yimid, waa xaqiiqo. qofkii rabaayi ha rumeeyo, qofkii rabaa ha beeniyo. daalimiin oo dhan naar ayaan u diyaarnayoo daaheeda iyo gidaaradeeda wada koobaysa. hadday dhacdo ayagoo naarta ku jira, haddayna gargaar weydiistaan laga aamusi maayee biyo aan fiicnayn oo wejiga intuu ka fiiqa ama ka gubo yaa loogu gargaara. sharaabna kaasaa u xun buu yidhi ilaahay. xagga murtafiqa iyo wax lagu raaxaysto oo lagu dangigsadana meeshaasaa u xun. intiisa rabbi rumaysay, camal wanaagsan la timid, annagu kama dayacna in allaala inta camal qabata wanaaggoodee jannay leeyihiin. waxaa hoos soconaya webiyaalo, waxaa lagu dhex qurxinayaa jijimo dahab ah. dharka loo xirayo waa doog oo uu cagaaran yahay. xariirta kala duduwan bay ka samaysan yihiin. sundusi istabraq waa midda jilicsan iyo ta adage. waxay ku dangiigayaan jannooyinka intay ku jiraan sariiro. tawaabtaasaa u fiican iyo xagga murtafaqa. intaa kadib baa qiso yar oo tusaale ah oo laba qofood oo qofna inta xoolo alla siiyey, kuna aan wax la siininoo iimaan alla ugu deeqay, intay murmeen kii xoolaha badnaa ee adduunka doonay yidhi intuu faantamay aakhiro inkiray. qisadaasaan in yar galnay waxoogaa haddana, oo ilaahay masal buu nooga dhigay laba nin oo midkood loo sameeyey laba beerood oo canab ah. waxa lagu soo kooboo lagu soo wareejiyana ay timir tahay. labada beerood inta u dhexaysa abuur iyo beero iyo midho kalaa la dhex yeelay ee uu ka faa'iidaysanayo hanti u noqota. labadaa beerood mid kastoo ka mida buu yidhi ilaah, waxay siisaaye bixisaa ninka midhaheeda, waxna kama nusqaamiso. webiga laga waraabiyana labada beerood dhexdoodaa laga dilaaciyey. timaar iyo miruu yeeshay. saaxiibkii buu la murmay. hadalka ugu horreeyey afkiisa ka soo baxay wuxuu noqday, ana akharu minka maalan wa acazzu nafaran. anaa kaa fiican oo kaa badan xagga dad maalka, xagga dadnimadana anaa kaaga cizi badan oo kaaga badan. intaasaanu markaa maraynay. intaa kuma ekaanina wuu soo saamo qaaday, wuu soo dhaqaaqay. wadakhala waxa uu galay ninkii jannatahu beertiisii, waxaal huwa asagoo daalimun linafsihi naftiisii dulmiyey. naftiisa ayuu nimcadii ilaahay siiyey shukrigeedii kaga kufriyey. naftiisa ayuu ku iloobay oo dulmigii qiyaamo uu ku iloobay. waa dulmi. naftiisa asagoo dulmiyey ayuu beertiisii galay. qaala markuu dhinac kasta ka fiiriyey oo beertii ay baxayso, mirihii ay soo daadinayso, mar walba ay bixinayso wuxuu u baahan yahay, intuu tacajubay uu yaabay, qaala wuxuu yidhi maa adunnu u malayn maayo
an tabiida inay baaba'ayso haadihi midani abadan weligeed ama weligeedba tan maa dhammaanaysa buu yidhi say ku dhammaanaysaa beertaana ma xaaladaana wax dhammaanaya ah aad buu u tacajubay xoolo fara badan buu arkay waxyaabo badan buu ilaahay siiyey meeshuu ilaahay ka xusi lahaa ka shukrin lahaa ogaan lahaa mixnii imtixaan inay tahay qiyaamuuba inkirayba wuxuu isku moodsiiyey middan inaysan baaba'ayn adduunkan lagula waaraayo wadakhala jannatahu beertiisii buu galay wahuwa asagoo daalimun linafsihi naftiisii dulmiyey qaala wuxuu yidhi maa adunnu u malayn maayo an tabiida inay baabi'i doonto haadihi midani abadan weligeed inay tirtirmaysay meesha ka baaba'ayso ma u malaynaayo kaaga sii daran wuxuu yidhi wamaa adunnu mana u malaynaya assaacata saacadda qiyaamana qaa'imatan tii qumaysay istaagaysay kacaysay imaanaysa inay tahay wala in rudidtu maba jirto calaa sabiili tafriid haddii layska qadaro lacalla waaye haddii lay celiyo maba lay celinaayo oo meeshaan ka bixi maayo oo beerta ma baaba'ayso saacad qiyaama maba jirto lacalla hadday dhacdo wala in rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisa la ii celiyey iska dhacda maba jirtee la ajidanna waxaan helayaa khayran mid ka fiican minha xaggeeda munqalaban xagga noqoshada markaan gadoomo makaankaan u gadoomayo tadtu ka fiican baa laysiin doonaa soo tan ima siinin ilaahay soo jecel way jecel yahay soo maaha muxuu ii siiyey hadduu tu kale isiinaynin saa darteed buu isku dardarsamayo saacaddii qiyaamana inkiriyey wamaa adunnu ma u malaynaya assaacata saacadda qiyaamana qaa'imatan tii qumaysa macnaha tii kacaysa imaanaysa oo istaagaysa inay tahay wala in rudidtu haddiise lay celiyo oo inta lay noqo ilaa rabbi rabbigay xaggiisay intay iska dhacda saacaddii qiyaamo xagga ilaah lay geeyo la ajidanna waxaan helayaa oo aan ka helayaa khayran wax ka khayr badan oo ka fiican minhaa beertan xaggeeda munqalaban xagga magaano gadoonka markaan gadoomo oo aan rabbi xaggiisa aado to ka fiican baa laysiin doonaa buu yidhi to ka khayr badan ayaa markaa lay siinayaa qaala lahu saaxibuhu intaa ayaa hadalkiisii noqday waad u jeedaa xoolihii la siiyey iyo sida ilaahay wax u siiyey iyo sida uu qiyaamo u inkiray kallaa ina alinsaana layataqaa an ra'aahu istaqnaa markuu kaaftoomid isku arko insaanku wuu qooqaa wuu kibraa amarka alluu diidaa sidaa darteed ayaa hadalkaa aan fiicnayn ayuu markaa ku hadlay wuxuu ula jeedaa haddii ilaahay aan lay celiyo xaggiisa oo aan u noqday qiyaamo timaado beertantu ka fiican baa laysiin waayo tanba waa lay siiyey waxaanba adduunkan ku helay tan tu dhammaanaysa maba ahanba insaanku markuu caafimaad qabo wuxuu moodaa inuusan xanuunsanayn markuu barwaaqaad ku jir wuxuu u maleeya inuusan fakri ku dhicin markuu faraxsan yahay wuxuu u maleeya inuusan murug asiibayn xaaladaasoo dhan adduunka waa loogu talagalo qofba wax baa soo mara ilaahayna dadku waa u kala rogrogaa subxaana wa tacaala wa tilka alayaamu nudaawiluhaa bayna annaas maanta markaad faraxsantaha ogow kuwa murugaysan ka murugaysan maalintuu farxay adaa murugoonaya mid markaad baahan tahay maanta kubaa dhergan ka dhergan maalinta baahida loo geeya dheragnaanta kuu imaanaysaa markaad sixa iyo salaamiya caafimaad aad qabto kubaa jiran ka jiran maalintuu caafimaado waxaa ku imaanaya ee imtixaankii xanuunka xaaladaasuu ilaahay ugu talagalay ninkan wuu hilmaamay xaaladaasoo dhan wuxuu yidhi maba jirtaba wala in rudidtu haddii la i celiyana ilaa rabbigay la ajidanna waxaan ka helayaa khayran minhaa mid ka khayr badan tan munqalaban xagga noqodkii gadoonka qaala lahu saaxibuhu saaxiibkii baa u jawaabay marka qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga ninkaa saaxibuhu saaxiibkiisii waa ninkuu la murmaayey ninkaani iimaan buu leeya laakiin xoolo ma haysto ninkan qiyaamuu rumaysan wuxuu ku xisaabtamayaa jannada iyo waxyaabaha yaala ninkan wax allaala wixii la siiyey waa uu sadaqaysto aakhiruu hormarsaday saa darteed buu saaxiibkiisii la hadlay kibirka iyo madax adayga la yimid qaala wuxuu ku yidhi lahu asaga saaxibuhu saaxiibkiisii waxaal huwa asagoo yuxaawiruhu la doodaaya akafarta ma kufrisay biladii macbuudkii miyaad ku gaalowday khalaqaka ku abuuray min turaabin ciidkaa abuuray
uma kadib min nudfatin dhibic biyaa haddana uma intaa kadib sawaaka ku simay ku ekeeyey rajulan nin rajul ah oo rajul ah kaa dhigay allaha maad ku kufrisay mar allaala markaad dhahaysatan ma dhammaanayso saacad qiyaamana dhici mayso mana lay celinayo ilaahay xaggiisa gaalnimo waayee ma waxaad ku kufrinaysaa macbuudkii ku qalqay akafarta waad kufrisay miya ma kufrinaysaa biladii khalaqaka akafarta waxaad ku kufriday biladii khalaqaka allihii kaa ku qalqay min turaabin waa asalka bani aadamka cara laga abuuray uma intaa ka bacdi min nudfatin waa inta ka soo haray faraciisii ahaa dhibic biyo ah uma kadibna sawaaka ku ekeeyey ku simay rajulan adoo rajul ah nin kaa dhigay allahaasaad ku kufrisay miyaad ku kufrinaysaa laakiinse huwa asagu allaahu laakin ana saasay u dhigan tahay laakiin anigu huwa arrintu waxay tahay allaahu ilaahay rabbii inuu rabbigee yahay ilaahay waa rabbigay walaa ushriku mana u sharig yeelaayi birabbii rabbigay axadan axad aan ula sharig yeelaayo cibaadada ma jirto keligiisaan caabudayaa ee walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannataka beertaadii qulta maxaad u dhihi weysay qulta maad dhahdid qulta adoo dhahaa fiicnayd maa shaa allah wixii ilaahay doono maa shaa allah inaad dhahdo ayay ahayd macnaha maa shaa allah inaad dhahdo taasaa loo baahnaa oo arrintu saasay markaa ahayd walowlaa id dakhalta waktigii aad gashay jannataka beertaada qulta maxaad u dhihi weysay inaad dhahdaa fiicnayd macnaha inaad dhahdaa loo baahnaa oo habboonayd qulta aad dhahdide maa shaa allah wixii ilaahay doonay ama maa shaa allah wuxuu ilaahay doonaa ahaada rabbi wuxuu doona saasay markaa u jirayaan maxaad u dhihi weysay laa quwata awood ma jirta ilaa billaahi ilaahay maahane in tarani haddaad ii aragtay ana anigu aqalla inaan yarahay minka xaggaaga maalan xagga xoolaha waa waladan iyo awlaada facasaa wuxuu mudan yahay rabbii rabbigay an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka fiican oo ka khayr badan min jannatika beertaada wa yursila uuna diro calayhaa beertii korkeeda xusbaanan dabayl cadaab wadataa min asamaa'i xagga cirka looga soo diro oo fa tusbixa markaa ay ahaato saciidan bannaan zalaqan sibsib ah zalaqa meel lugta marka saa loogu socdo qofka uu ku taraaraxu ku dhacaa la yidhaahdaa zalaqahoo sibsib ah inay noqoto ayaa xaqiiqo ah ow amase yusbixa inuu noqdo maa-uhaa biyaheeda gawran ku gursaday oo dhulka hoos tegay falan tastatiica aadna kari weydo lahu kaa talaban dalab inaad raadisana aad kari weyso taasaa xaqiiqo ah wiilkaan mu'min waaye rabbi ayuu aaminsan yahay saa darteed ayuu og yahay daartan adduunka abaalka qofka lagu siiyo inay jirto abaalgud ka sii badan kana wanaagsan daarta qiyaamaha waa loo faantamay beer baa loogu faanay dadnimaa loogu faanay xoolo badnaan baa loogu faantamay asagana wuxuu in badan isku adkeeyey aaminsanaanta uu alle aaminsan yahay daartan haddii laga guurana daar kale oo janno la geli doono taasuu asaguna markaa tilmaamay qaala lahu saaxibuhu saaxiibkiisii wuxuu ku yidhi wahwa yuxaawiruhu asagoo la murmaaya asagoo markaa la doodaya akafarta ma kufriday biladii macbuudkii miyaad ku kufrisay khalaqaka ku abuuray min turaabin carra kaa abuuray uma intaa ka bacdi min nudfatin dhibic biyaa kaa abuuray uma intaa ka bacdi sawaaka ku ekeeyey ku simay rajulan rajul adigoo ah nin rajul ahoo tamaam ah oo hadlaya oo murmaya oo doodaya kaa dhigay allahaa miyaad ku gaalowday maanta allahaas miyaad ku kufrinaysaa allaha waxaa dhan ku siiyey oo nimcadaa kuu galay miyaad ku kufriday maanta laakiinse anigu huwa arrintu waxay tahay ama huwa sha'niya allaahu ilaahay rabbii inuu rabbigay yahay ilaahay waa rabbigay allaahu rabbii alla rabbigay waaye walaa ushriku mana la wadaajinaayi oo la sharig yeeli maayo birabbii rabbigay cibaadadiisa axadan qof aan ula sharig yeelayay markaa ma jiro malag muqarab hadduu yahay
nebi mursala hadduu yahay weli mukarama hadduu yahay wuxuu raba kaa'inan man kaan axad aan ilaahay cibaadadiisa ula wadaajinayo ha yaraatee markaa ma jirto ee walowlaa id dakhalta wakhtigii aad gashay jannataka beertaada qulta maxaad u dhihi weysay maa shaa allah maxaa u dhihi weysay wax cajiib leh oo tacajuba oo kaa yaabiya oo qayr badan markaad heshaa la isticmaalaa maa shaa allah maa shaa allah maxaad u dhihi weysay hadalkaa maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono saan bay noqdaanoo way ahaadaan maxaad u dhihi weysay laa quwata awood ma jirto ma lihin ilaa billaahi ilaahay kaalmihiisa maahane awood allay waxaan ku yimaadaan oy ku ahaadaanoo annaga waxaan samaysan karnaani ma aha in tarani laakiin haddiise aad ii aragtay ana anigu aqalla inaan ahay mid yar minka xaggaaga maalan xagga xoolaha wa waladan iyo xagga owlaadda haddaad u aragtay inaan kaa yarahay fa casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay xaqiiqana ku yahoo la arkaa an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan oo ka fiican min jannatika beertaada wax ka fiican inuu rabbigay isiiyo beertiisii waan soo tilmaanoo 2 beerood baa la siiyey canab baa ka samaysan ood baa lagu soo wareejiyaa iyo silsilad waxaa loogu soo wareejiya timir 2 beerood inta u dhaxaysa meel cidla ma ahee zarci iyo maal fara badan baa u yaala 2daa beerood mid kastoo ka mida midhaheeda way bixisaa fasal iyo wakhti iyo gu iyo jiilaad ay baaqata ma laha biyaha lagu waraabinayo waxaa laga dhex jeexay beeraha dhexdhexyaalkooda timaar fara badan baa u sugnaatay waxaa maxaa ka khayr badan markuu dhahayo ay fa casaa rabbii an yu'tiyanii khayran min jannatika beertaada wax ka khayr badan inuu ilaahay isiiyo waa beerta aakhiro waa jannada aakhiruu ula jeedaa wayursila la diro ama ilaahay uu soo dira calayhaa beerta korkeeda xusbaanan cadaab uu ku soo diro ama dabayl ah ama gubasho ah wuxuu markaa ilaahay ugu talagalo oo markaa ku soo dira korkeeda min asamaa'i xagga cirka uga yimaada oo fa tusbixa ay ahaata beertii saciidan meel gawaan ah meel bannaan ah zalaqan oo sibsib ah meel gawaan ahoo saciid ahoo bannaan ahoo cidloo waxba aan ku aalin meeshii beerta ka bixaysay oo dhan inta cadaab loo soo diro markaa laga tirtiro waxay la mid tahay qisadii aanu soo marnay ee wiilashii yeman deganaa ee ilaahay subxaanahu watacaala u yihi fataafa calayhaa taa'ifun min rabbika wahum naa'imuun ayagoo hurdaaya wax tawaafaya rabbi xaggiisa uga yimid waa cadaab way gubatay beertii oo dhan fa asbaxat kasariim sidii wax la goostay iyo bal la daaqay oo kale noqotay buu dhahay ilaa subxaana wa tacaala idan xaaladaasuu yarku tilmaamayaa fa casaa rabbii rabbigay wuxuu mudan yahay xaqiiqana ku yahoo la arkaa an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka khayr badan min jannatika beertaada wiilashii horena maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waxaan rajaynaynaa innaa ilaa rabbinaa raaqibuun ilaahay ayaan xaggiisa rajaynaynaa subxaana wa tacaala inuuna siiyo wax ka khayr badan inuu ilaahay noogu abaalgudo wax ka fiican inuu ilaahayna siiyo wax ka sharaf badan oo ka qiimo badan waa tii ay tilmaameen fa aqbala bacduhum calaa bacdin yatalaawamuun qaaluu yaa waylanaa inaa kunnaa taaqiin casaa rabbuna an yubadilanaa khayran minha meertaan in mid ka khayr badan uu noogu bedelo innaa ilaa rabbinaa raaqibuun rabbigaiyo xaggiisaan rajaynaynaa taasoo kale waaye markaasuu yidhi waxaa dhici karta inuu ilaahay isiiyo wax beertaada ka khayr badan iidana la tirtiro wayursila ilaahay uu diro calayha korkeeda xusbaanan dabayl amase cadaab xagga rabbi ka yimid min asamaa'i xagga kore oo fa tusbixa ay ahaatay noqoto saciidan bannaan zalaqan gawaan ah oo sibsib ah ow amase yusbixa maa'uhaa biyaheeda uu noqdo uu ahaado gawran mid gursaday dhulka hoos iyo meel aan la gaari karin tagaa oo falan tastatiica aad kari weyso lahu asaga talaban talab raadinteeda xataa aad kari weyso wa uxiita waaba la koobayba bitamarihi mirihiisii baa la koobay mirihii oo dhan iyo beerta mirihii ku tiile cadaab baa koobay fa asbaxa ninkii wuxuu noqday yuqallibu mid isku gedgediya kafayhi labadiisa kafood oo labada gacmood waa qof wareeray qof hanti badan haysan jiray oo adduunka u kala socday oo dukaamo fara badan waxyaabo badan lahaa oo wixii hal mar ay baaba'een
ood arkaysa magaalada asagoo maraya ma qubaysanayo ma shanlaysanayo wax mataqaanaa nadaafada kama muuqato gacmuu isku gagaraacaya xoolahaygii way dhacdaa in badan mar allaala markii burburkii dhibaatadii dhacday dad fara badan oo magaalada intay kasoo kala tageen magaalooyinka kale iska dhex socdaa oo isla hadhadlayaa jira intaasoo dhan waxay ku timaadaa qofku mar allaale markuu adduunka israacsiiyo sida hadda ninkan oo kale uu yidhi maa adunnu an tabiida haadihi abadan akhiiran gabagabadii waxay noqotay inuu suuqa iska wareego gacmaha isku gargaraaco waa nin wareeray waa nina ka jajabtay macnaha wuxuu haystay ay baaba'een saase way dhacdaa in badan oo kamida dadkana marka xoolahoodii ay baaba'aan ama ay gubtaan ama waxay ka noqdaan rabbi ay usoo laabtaan subxaana wa tacaala idan ninkan muxuu noqday wa uxiita bithamarihi mirihiisii baa la koobay cadaab baa koobay fa asbaxa ninkii wuxuu noqday yuqallibu mid isku qallibo isku gedgediya kafayhi labadiisa gacmood wuu isla sheekaysana wuu isla hadhadlaa keligii gacmuhu saa iskugu gargaraacaya calaa maa anfaqa wixii uu ku nafaqeeyey korkeeda fiiha beertii dhexdeeda qarashkii iyo xoolihii wuxuu geliyey waa khasaaradii ku dhacday calaa maa anfaqa fiiha wahiya waxay noqotay beertiina khaawiyatun mid dhacday calaa curuushiha saanqaafkeedii ku soo duntay wayaquulu markaasaa wuxuu leeyahay uu yidhi yaa laytanii shallaytadaydiyay lam ushrik maxaan ugu shariig yeelay birabbii rabbigay axadan maxaan ilaahay ugu shariig yeelay maxaa ii geeyey shirki maxaa rabbigay aan u diiday maxaan qiyaama u inkiray yaa laytanii lam ushrik anoon u shariig yeelin ficnaydaa macnaha waa sidaa lam ushrik inaanan shariig yeelin ficnayda birabbii rabbigay axadna aanan ugu shariig yeelin waxaal buu sidaa yidhi lam taku aysan u ahaan lahu asaga fi'atun jamiico iyo koox yansuruunahu u gargaarta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa markuu sidaa dhahaaye koox u soo gurmataa oo u gargaartaayey markaa ma jirin waa kow wamaa kaana muntasira asagana ma aha mid gargaarsan kara qofku laba si waay inuu tabar leeyo dadka iska celin karo iyo in loo soo gurmado markaa laga celiyo labadiiba ma jirta buu dhaha ilah subxaana wa tacaala walam taku uma ahaan lahu asaga fi'atun jamiico iyo koox oo yansuruunahu uga hiiliso uga gargaarta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa wamaa kaana asaguna ma ahayn muntasiran kii iswaxtari kara kii isku gargaari karoo gargaarsan karana markaa ma ahayn hunaalika meesha alwalaayatu gargaarku lilaahi ilaah buu usugnaaday alxaq ee xaqa ah lilaahi alxaqi gargaarka xaqa ah ilaahay baa iska leh ama gargaarka ilaaha xaqa ayuu u sugnaaday huwa ilaahay khayrun hawaaban inta hawaabisee wax abaalmarisa midka u khayr badan waayo wa khayrun asagaa u khayr badan cuqban xagga ciribta xagga cuquubada iyo xagga ciribta dambana asagaa alla u khayr badan subxaana wa tacaala oo qofku mar allaala marka diintiisii raacuu sabro cirib wanaagsan buu siiyaa marka ilaahay waxaa u sugnaaday subxaana wa tacaala uu ahaaday huwa khayrun hawaaban wa khayrun cuquban xagga cirib dambeedkana asagaa markaa u khayr badan milkii beertiisii waa la koobay ayadoo dhanba cadaab baa hareereeyo eber ka dhigay saasay markaa noqotay wa uxiiqa waa la koobay bithamarihi mirihiisii cadaab baa kooboo dabeeshiiyaa loo soo diray ama cadaabkii kale alla xaggiisa markaa ka yimid nawcu noqdaba fa asbaxa wuxuu ahaaday ninkii intuu magaalada iska maro asagoo isla hadhadlaya keligii inuu gacmaha isku garaaco yuqallibu mid isku gedgediya kafayhi labadiisa kafood labadiisa gacmood wareer uu wareeray darteed adduunka markuu ka hor yimaado waa dhibaato badan meelo fara badan ayuu kugu kalifaya inaad samayso kuwa isla hadhadlaa kuwa mataqaanaa gacmaha isku gagaraaca kuwa gacmaha tuurtuuro kor u waxeeya waa mar allaala markay baashuu ka hor timaado dhibaatadaasay markaa leedahay fa asbaxa yuqallibu inuu taqliibinayo gedgedinaya kafayhi labadiisa kafood calaa maa anfaqa wixii uu ku nafaqeeyey fiiha beertii gudaheeda sababteeda qaartidii iyo qarashkii iyo wixii ka galay wahiya khaawiyatun beertiina waa mid dhacday calaa curuushiha saanqaafkeedii dhismaheedii kusoo duntay wayaquulu wuxuu yidhi ninkii yaa laytanii shallaytadaydiyey lam ushrik aan u shariig yeeline inaanan u shariig yeelin habboonaan lahaydee macnuhu waa sidaa lam ushrik maxaan ugu shariig yeelay waaye birabbii rabbigay axadan axad walam takun uma ahaan lahu asagoo uma sugnaanin fi'atun koox yansuruunahu
uga gargaarta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa wamaa kaana asagiina ma ahan muntasiran mid gargaaran kara hunaalika alwalaayatu goobta wakhtigaa iyo meeshaa marka la taagan yahay ee gargaarka loo baahan yahay alwalaayatu gargaarka iyo maamulkii walaayadu lilaahi bay u sugnaatay alxaqi allihii xaqa ahaa waayo huwa khayrun ilaahay wuxuu u khayr badanya hawaaban inta wax abaalmarisaa wa khayrun cuqban xagga ciribtana asaga u khayr badanoo sow asagu qofku ugu talagalo ku abaalmariyaa wadarib yeel marka lahum ayaga mathala alxayaati addunyaa nolosha adduunka tusaalaheeda kamaa in biyo oo kale inuu la mid yahay anzalnaahu aan ka soo dejinay min asamaa'i cirka xaggiisa fakhtalada dhex galay oo dheehay bihi biyihii nabaatul ardi dhaladka arlada nabaadkii waxyaabaha dhulka uu soo bixiyo fa asbaxa intaa kadibna uu noqday hashiiman burbur tadruuhu ay kala baadbaadisay alriyaaxu dabayluhu wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii muqtadiran kii kari karaa shay kasta kii awood u leh buu ilaahay ahaaday subxaana wa tacaala mathal yar ayaa adduunka nala ka siina wax weyn ma ahee waa biyo soo qubtay cirkuu ka yimid nabaadkii biyi baa isdhex galay meeshii baa doog noqotay meelaha qaarkood biyaa fadhiistay meeshoo dhan aaran iyo doog iyo cagaar bay noqotay geedihii horey u dhintaa dib u soo noolaaday doogii cagaarkii markuu noqday kadib fa asbaxa hashiima burbur buu isku bedelay oo tadaruhu riyaax dabayshu ay kala firdhisay tadaruhu ay kala ququbtay kala daadaadisay wa kaana allaahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii muqtadiran kii kari karo awood u leh ayuu rabbi ahaaday subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu sidaa tahay ayaa waxaa la tilmaamayaa oo nala leeyahay adduunku saas waayo xaaladiisee in badan markaa iska jira in badanna markaa ogaada wadakhala ninkii wuxuu soo galay jannatahu beertiisii wa xaal huwa asagoo daalimun ah mid dulmiyey linafsii nafsadiisa qaala wuxuu yidhi maa adunnu u malayn maayo an tabiida inay baaba'ayso haadihi midani abadan weligeed wamaa adunnu una malayn maayo assaacata saacadda qiyaamo qaa'imatan inay qumaysay istaagaysay dhacayso wala in rudidtu haddii lay celiyo ilaa rabbii rabbigay xaggiisay iska dhacda in lay celiyo la ajidanna waxaan helayaa khayran wax ka khayr badan minhaa beerta xaggeeda munqalaban xagga magaano noqodkii gadoonka qaala lahu wuxuu ku yidhi asaga saaxibuhu saaxiibkiisii wahwa yuxaawiruhu asagoo la doodaya akafartama waxaad ku kufrisay biladii macbuudkii khalaqaka ku abuuray min turaabin carra kaa abuuray uma haddana min nudfatin dhibic biyaa kaa abuuray uma intaa ka bacdi sawaaka ku ekeeyey oo ku simay rajulan rajul iyo nin adigoo ah laakina huwa allaahu rabbii laakiinse anigu huwa arrintu waxay tahay ama sha'niye allaahu ilaahay rabbii inuu yahay rabbigay walaa ushriku mana u sharig yeelaaye birabbii rabbigay axadan axad aan cibaadada la wadaajinayay ma jiro ee walowlaa id dakhalta markii aad gashay jannataka beertaada qulta maxaad u dhihi weysay maa shaa allah maxaad u dhihi weysay macnaha laa quwata awood ma jirta ilaa billaahi ilaahay maahane in tarani haddii aad ii aragtay ana anigu aqalla inaan kaa yarahay minka xaggaaga maalan xagga xoolaha wa waladan iyo ilmahaba facasaa wuxuu mudan yahay rabbii rabbigay an yu'tiyanii inuu isiiyo khayran wax ka fiican oo ka khayr badan min jannatika beertaada oo jannadii aakhira ah wa yursiladi uu diro calayhaa beertaa korkeedana xusbaanan cadaab uu usoo diro ilaahay xisaab ah oo sugan oo ilaahay ugu talagalay cadadeedii xisaabteeda min asamaa'i xagga kore looga soo diro oo fa tusbixa ay ahaato markaa beertii meeshii ay ku tiilay saciidan bannaan zalaqan sibsib ah ow yusbixa ama uu ahaada maa-uhaa biyaheeda gawran mid fadhiistayoo dhulka meel aan laga soo bixin karin tegay oo gursaday ama guray falan tastatiica aad kari weydo lahu asaga talaban dalbideeda xataa inaad dalabtood raadiso aad awood u weyso wa uxiita waaba la koobay bitamarihi mirihiisii cadaab baa koobo way gubteen oo ilaahay suu ugu talagalaa loo baabi'iyey fa asbaxa wuxuu noqday ninkii yuqallibu inuu isku gedgediyo mid isku gedgedinaya oo isku gargaraacaya kafayhi labadiisa kafood labadiisa gacmood buu isku tumayaa wareerkii dhibaatadii ku dhacday darteed calaa maa shay dushii
anfaqa uu ku bixiyey fiihaa beertii dhexdeeda wahiya khaawiyatun waxayna noqotay mid dhacday calaa curuushihaa saanqaadkeeda wayaquulu wuxuu yidhi yaa laytanii shallaytadaydiyey lam ushrik maxaan ugu shariig yeelay maxaa ii geeyey macnaha shirkiga birabbii rabbigay axadan axad maxaan ugu shariig yeelay anoon u shariig yeelin fiicnaan lahayda walam takun oo mana sugnaanin lahu asaga markuu sidaa dhahayay fi'atun jameeco yansuruunahu u heliso uga gargaarta min duuni illaahi ilaahay sukadiisa wamaa kaana mana noqonin muntasiran asagiina ma ahaan mid gargaaran kara hunaalika goobtaa iyo meeshaa dhibaatada soocaas ay u taalo alwalaayatu gargaarka iyo walaayaha iyo maamulkada lilaahi alxaq ilaah xaqaa buu u sugnaaday lilaahi alxaqi huwa ilaahay khayrun hawaaban inta wax hawaabisa asaa u khayr badan wa khayrun cuquban xagga cirib dambeedkana asagaa u khayr badan subxaana wa tacaala wadarib yeel lahum ayaga mathala alxayaati addunyaa noloshaan dhow matalkeeda kamaa in biyo oo kale inuu la mid yahay anzalnaa aan ka soo dejinay hu biyaha min asamaa'i xagga kore faاkhtalata uu dheehay dhex galay bihi biyaha nabaatu lardi arlada nabaadkiisii waxuu soo dhalinayo fa asbaxa intaa kadib waxoogaa kadibna noqday hashiiman burbur oo tadruuhu ay kala firdhisay kala daadaadisay alriyaaxu dabayluhu wa kaana allahu ilaahayna wuxuu ahaaday calaa kulli shayin shay kasta dhammaantii muqtadiran kii markaa kari karo awoodo almaalu wاlbanuuna ziinaة الxayaaةi الdunya wbiاllahi الtawfiiq wallahu subxaanahu watacaala aclam.